arooskii jiirka. beri waxaa jiray jiir magaciisu yahay liibaan iyo xaaskiisii farduusa. waxay ahaayeen reer daacada oo dadaal badan. beer yar ayay lahaayeen oo ay ku beeri jireen ubax ay suuqa ku iibiyaan. liibaan iyo farduusa waxay lahaayeen ilmo keliya, inantooda liina, oo ay aad u jeclaayeen. liina waxay ahayd ilmo kalgacal badan oo waalidkeeda beerta ka caawisa, gurigana ka xanaanaysa. liibaan iyo farduusa waxay ka warwarsanaayeen inay gaboobaan oo awood ay ku ilaaliyaan oo daryeelaan liina waayaan. liibaan xaaskiisii ayuu la hadlay. wuxuu yidhi, ha werwerin, berito waxaan liina u raadinayaa nin adag. maalintii xigtay subaxnimo hore ayuu ka baxay liibaan guriga. saacado yar kadib wuxuu gaadhay buur dusheed oo geed jiriddii ayuu isku taagay. wuxuu la yaabay diirimaadka iyo dhalaalka cadceedda. gacmaha intuu sare u qaaday ayuu qayliyey, ma nabad baa cadceed? raalli ahow, may maqli kartaa? cadceed hoos ayuu eegay. wuxuu arkay jiir yar oo la hadlaya. markaasuu u jawaabay, haa, waan ku maqli karaa. maxaad iga doonaysaa? liibaan wuxuu yidhi, raalli ahow, nin xooga ayaan u doonayaa inantayda. waxaan rabaa inaan ogaado inaad ka ugu xoog weyn tahay. cadceed wuxuu ugu jawaabay, dabcan jiiryow nacaska ahi, adduunka oo dhan ayaan iftiimiyaa oo diiriyaa. liibaan wuu ku farxay intaa inuu maqlo. wuxuu is yidhi, weydii in cadceed doonayo inuu guursado inantiisa. intaanu weydiin, daruur weyn oo madow ayaa qarisay cadceeddii. liibaan wuu yaabay. cadceed wuu qarsoomay. wuxuu ka fikiray in malaha aanu ugu xoog weynayn. wuxuu la hadlay daruurtii weynayd. ma nabad baa daruur? waxaan inantayda u raadinayaa nin xooga. markaa waxaan rabay inaan ogaado inaad ka xoog badan tahay cadceedda oo tahay ka ugu xoog weyn. daruur hoos ayuu eegay. wuxuu arkay jiir yar oo jiridgeed ka qaylinaya. cod kibirsan ayuu ugu jawaabay, waa su'aal doqonnimo ah. dabcan aniga ugu xoog weyn. markan doono ayaan cadceedda qarin karaa. yaa kaloo awooda inuu intaas sameeyo, ayuu yidhi isagoo qoslaya. intaanu liibaan haleelin inuu daruur kala hadlo guurka inantiisa, dabayl xooga oo quwad leh ayaa bilaabantay. jiriddii geedka ayuu ka dhici gaadhay. nasiib wanaag, jiriddii geedka ayuu xoog u qabsaday. markuu sare eegay wuxuu arkay in dabayshu daruurtii afuuftay oo eriday. isaga oo la gariiraya baaqdintu ka baqayay xoogga iyo quwadda dabaysha, wuxuu liibaan sare u qaaday codkiisii oo la hadlay dabaysha. dabayl, raalli ahow, waxaan doonayaa inaan ogaado inaad ka ugu xoog weyn waddanka tahay. dabayl hoos ayuu u eegay. wuxuu arkay jiir yar oo jiridgeed ku daba dhuumanaya. dabcan waan ahay. miyaad arkayn sidan u afuufay daruurtii daciifka ahayd ee bilaa macnaha ahayd? wax iga quwad roon ma jiraan. liibaan wuu la dhacay dabayl. hadalkiisana wuu ku raaxaystay. wuxuu ku jawaabay, waan ku farxay waxaan maqlay, waayo waxaan raadinayaa nin xooga oo inantayda guursada. dabayl si kibirsan ayuu ugu jawaabay liibaan. wuxuu yidhi, waxaad heshay ka ugu xoog badan. si aan kuu tuso ilaa gurigaaga ayaan ku qaadi doonaa. wuxuu afuufay dabayl xoogan oo liibaan mar keliya sare u qaaday. intaanay gaadhin guriga liibaan, dabayshii waxa joojiyey gidaarka guriga ku xiga ee jaarkooda. nasiib wanaag, liibaan muu cawarmin oo intuu cagihiisa isku taagay ayuu daawaday dabayl oo isku dayaya inuu gidaarka dumiyo. gidaarkii wuu istaagay oo ku qoslay dabayl oo isku dayaya inuu dumiyo, laakiin aan ku guulaysan. dabayl intuu fashilmay
ayuu iska tegey isagoo cadhaysan oo wareersan. liibaan sare ayuu u eegay oo fahmay inuu hor taagan yahay ka runtii ugu xoog weyn waddanka. wuxuu yidhi, gidaarow, waxaan u doonayaa inantayda nin quwad leh. waxaad ka adkaatay dabayl oo ka adkaaday daruur oo isna ka adkaaday cadceed. waxaad tahay ka ugu xoog weyn waddanka. gidaarku wuu isla weynaaday oo cod kibirsan ugu jawaabay liibaan, dabcan waa sidaa, jiiryahow nacaskahi. cid iga quwad badan ma jirto. inantaadu nasiib ayay leedahay haddaan ninkeedu noqdo. liibaan wuu ka daalay anshaxumada maalintii oo dhan u mutay, laakiin wuxuu ogaa inay inantiisu weli u baahan tahay nin xoog ah oo ilaaliya. wuxuu ogaa inaanu wax kala samayn karayn oo uu ku qasban yahay gidaar inuu sodogu noqdo. si lama filaan ah wuxuu maqlay sanqar gidaarka dabadiisa ka timi. daqiiqada kadib madax ayaa meel daloosho ka soo baxay. wuxuu ahaa cadnaan, inanka jaarkooda oo qurux iyo edabba leh. intuu liibaan eegay ayuu ku yidhi, waan ku faraxsanahay inaan ku arkay adeer. beertaadii siday tahay? liina siday tahay? gidaarkii weynaa wuu fashilmay. wuxuu ku yidhi liibaan, anigaa waddankan ugu xoog weyn, laakiin jiirkan balaayada ah kama joojin karo inuu daldalool igu sameeyo. wuxuu fahmay liibaan in wuxuu raadinayay wakhtigan oo dhan ay hor taagan yihiin. cadnaan wuxuu ahaa inan dhallinyaro ah oo akhlaaq wanaagsan oo ka xoog weyn gidaar. sidaa aawadeed wuu ilaalin karaa inantiisa. isla markaaba wuxuu weydiiyey cadnaan inuu inantiisa doonayo inuu guursado. cadnaan aad buu u farxay. cabbaar buu jeclaa liina, laakiin aad ayuu uga xishoon jiray inuu la hadlo. gurigii ayuu ku noqday liibaan oo safarkiisii uga sheekayey reerkii. dabeedna liibaan wuxuu liina weydiiyey inay ku faraxsan tahay ninku u doortay inay guursato. xoog ayay ugu faraxday in cadnaan noqday ninku aabbaheed u doortay, oo isla markiiba way oggolaatay. in yar kadib way isguursadeen. dadka tuulada ku nool oo faraxsan ayaa arooska yimi iyaga oo hambalyaynaya. farduuse waxay ku faraxday in inanteedii la guursaday. liibaanna wuxuu ku faraxsanaa inuu liina u helay nin wanaagsan oo xooga. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.